الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنة كعصب نور الشيء هي سنة كهور إسلام كبا إلى سبحانه وتعالى وحنا كرجين إننا خير يوناك فربضا بش يبرواقو أنت بيلهين ونصيه بلايوين كيو وحيابها وريجي لباتوين كهنا إلى سبحانه وتعالى لما أنتم بينو النبال مريو ومدى مسلمين تنو كحجاب walaalayaal waxaan idinku baraarujinayaa qodob aad iyo aad muhiim ah islaamkuna muhiimad gaar ah u siiyay ummadda muslimiintana u faray qodobkaas waxa weeyaan ahmiyatu ziraacati fil islaam muhiimadda ay leedahay wax beeristu islaamka dhexdiisa iyo doorka islaamku uu siiyay ziraacada ama wax beerista maadaama sanadkii cusbaa uu noo bilaabmay waxaa magaaladeena berbera ka socota dhirayn sidii hore ka xoogan oo laba jibaaran taana muhiimadeedu waxa weeyaan si loo helo magaalo camiran oo cagaaran dhinaca kale marka laga istaagana nadiifa oo qurux badan saadarteed madax iyo shacab ama dawlad iyo shacab waxa la doonayaa oo looga baahan yahay arrinka inaynu gacmaha isku qabsano oo magaaladeena aynu uga dhigi lahayn labada xilliye kala duwan ba u saaxiibka ah jiilaal iyo xagaaba inaynu ka dhigno magaalo cagaaran oo qurux badan dhinaca kale marka laga istaagana nadiifa muhiimadda uu siiyay islaamku walaalayaal wax beerista ama dhiraynta waxa kamid ah jacala al-islaamu li'amali saahibi az-ziraa'ati sadaqatan jaariya qofka wax beera waxa islaamku ka yeelay amalka uu qabanayo mid sadaqa isaga u ah oo anfacaya intuu nool yahay iyo noloshiisa kadib waqtiga uu dhinto ama uu geeriyoodo muhiimadda uu siiyay islaamku beerista iyo dhiraynta waxa kamid ah wa'tabara dhalika al-amal min qabil al-ibadat qofka wax beeraya ee dhirtii ka shaqeynaya ee bi'ada iyo deegaankii camiraya waxa uu la mid yahay qof cibaado ku jira oo kale muhiimadda uu siiyay islaamku wax beerista waxa kamid ah in dhulkii uu noqonayo mid camiran oo cagaaran oo qurux badan saadarteed ba waxay soo gudagalaysaa wax beeristu hadalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yiri huwa alladhi ansha'akum من الأرض واستعمركم فيها إلهي واكيدن كأبوري دولك حقيسة إذن كند البضي أو إذن ويديستي أرلضين عمرتان وكشقيسان وحكبيرتان ونظيفسان ترك الزراعة وتشجيرها تجعل الأرض صحراء وبيضاء إنه كتغنو وحبيريستا أما لرينتا دولك waxay dhulkii ama deegaankii ka yeelaysaa mid lama degaana oo saxara ah oo indhuhu ay ka didaan oo dadka ibn aadamkii ay noqoto meelaan u fiicnay noloshooda iyo inay sii deganaadaanba saadarteed waxa la nooga baahan yahay dawlad iyo shacabba inaynu gacmaha isku qabsano sanadka cusub ee noo bilaabmay 2021 magaaladeenu siday u sii qurux badnaan lahayd siday nadiif u sii noqon lahayd si aynu xaafadaha magaalada dhexdoodana uga shaqeyn lahayn inay u noqdaan kuwa cagaaran oo bilicsan oo aad iyo aad u qurux badan inagu aynu ku faraxno dadka kale magaalooyinka naga soo booqanaya ay ku farxaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ajarkooda iyo xasanaadkoodaba uu inaga siiyo qodobka aan soo gudbinayaa intaas uu ku ogyahay aad iyo aad ba mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh